بسم الله الرحمن الرحيم مالو wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Israa'iil iyo Somaliland oo qaaday tallaabo wadnaha jartay dawladda federaalka Soomaaliya xogta sheegayso maraakiibta dagaalka ee Israa'iil ee imaanayo dekada Berbera iyo gujiska oo iyaduna Israa'iil ay keenayso biyaha Somaliland arintan maxaa laga gol leeyahay maxay tahay tallaabada dawladda federaalka Soomaaliya ee qaaday ilaa xilligan si ay kaga hortagto qorshaha waalida ah ay diyaarinayaan Israa'iil iyo Somaliland muxuu yahay heshiiska amni ee dadweynaha laga qariyay ee dhinaca badda sidoo kale quseeyo kaasi oo dhaxmaray dhinacyada barnaamijkeena ayaynu ku soo gudbin doonaa hadii la weyno qadaro islaamada waxaan idin la wadaagi doonaa wararka ku saabsan xaaladda degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii la soo dhaafay wadahadallada socanayo ee u dhaxeeyo beelihii halkaasi ku diriray iyo ciidamadii daacad u ahaa lafta gareen oo xalay hurdada u diiday magaalada Baydhabo iyaga oo dagaalo aad u culus ku qaaday gudaha magaaladaasi barnaamijkeena ayaynu ku soo gudbin doonaa qodobada ay kuwa kale ayaynu qaybta kula wadaagi doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal aanu ku bilowno barnaamijkeena isla markaasina ugu horeysiino Somaliland iyo Israa'iil oo qaaday tallaabo wadnaha jartay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo warbaahinta caalamka ay si xooggan u qorayso dadaalo ku aadan heshiis amni oo quseeyo qodob dhigayo iskaashi dhinaca amniga badda oo ay kala saxideen Somaliland iyo sidoo kale Israa'iil taa oo sahlaya in ay Israa'iil maraakiibteeda dagaalka iyo gujiska ay geeso dhulka ama badda Somaliland inkastoo ay tahay badda Soomaaliya hadana heshiisku waxa uu dhigayaa in deegaanada ay ka arrimiso xukuumadda Hargeysa in la geen doono maraakiibtaasi dagaal iyo gujiska waxa uu qorayaa heshiisku in ay dhinacyadu iska kaashan doonaan arrimaha amniga lama oga ujeedada ka dambeysa oo heshiiskan amni ee dhinaca badda ah u wada galayaan Israa'iil iyo Somaliland ma waxa ay doonaysaa in ay ka hortagto xulufada dawladda Soomaaliya ee markaasi kala shaqeynaya arrimaha soo saarista shidaalka iyo sidoo kale qeyraadka dabiiciga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya biyaheedu ay ka soo saareyso ee ah dawladda wadanka Turkiga dagaal cusub ayaa bilowday Israa'iil qorshayaasheedii ku qotomay aqoonsigii ay siisay Somaliland ayaa ay la soo baxday waana damaceedii ku wajahnaa dhinaca badda durbana heshiiskii amni ee dhinaca badda quseeyay ayaa qalinka lagu duugay warbaahinta caalamka ayaa si markaasi xoog leh waxay u qoraysaa qorshaha maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale gujisyada Israa'iil lagu geenayo biyaha Somaliland dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo arintan ka hortagayso ayaa durba bixisay dadaal xoog leh iyadoo xitaa dawladdu ay marayso dawlado xulafo la ah Israa'iil si maamulka Netanyahu lagu qanciyo in ugu yaraan ay joojiyaan talaabooyinka guracan ee ku wajahan in ay si sharci darro ah maraakiibta dagaalka Israa'iil lagu keeno qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya gaar ahaan qaybta ay sheegato Somaliland ruuxintaas aragtida hoos ayaa noogu reebi kartaa dagaalo ka dhacay degmada Jalalaqsi waxa lagu soo waramayaa xaaladeedu inay hadda degan tahay iyada oo faahfaahin kala duwan ay ka soo baxayaan dagaalada saacadii la soo dhaafay dhacay xildhibaano iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa tagay degmadaas guriga ayaa la iska gubay dhacdooyin kale oo fool xun waa ay dhaceen hadda nabadda iyo xalka ayaa la baadagoobayaa aragtida ku aadan hoos ayaa noogu reebi kartaa xaaladda degmada Jalalaqsi oo wareysi ku saabsan qaybta dambe aan idinku reebi doono xaaladihii ugu dambeeyay oo aan ka wareystay xildhibaan macallimo dhinaca kale magaalada Baydhabo xalay lagama hoyeen dagaal qaraar ayaa ka dhacay waxaana ay dhaxmareen ciidamada daacad waa madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen iyo ciidanka markaasi maamulka Koonfur Galbeed ee uu hogaamiyo Sheekh Aadan Madoobe kuwaasi oo ciidanka madaxtooyadu ay markaasi iska caabiyeen wararkii la soo qaaday Aadan Madoobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa durba wajahayo iska caabin maamulkiisa looga soo horjeedo oo ay wadaan ciidamada daacad oo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed oo duurka ku jira shalay una ay ahayd markii ay soo bandhigeen askar maxaabiis ah oo laga qabtay lafta gareen laakiin weerarkaasi iyagoo ka jawaabaya ayaa weerar argudasho ay xalay ay soo qaadeen ciidankii lafta gareen dagaal aad u qaraar oo faraha loogu gubtay ayaa dhacay qasaar dhimasho dhaawac ayaa socda maanta howlgal ayaa
ay ciidanka militariga Soomaaliya oo caawinayo ciidanka ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada Koonfur Galbeed uu hogaamiyo Aadan Madoobe ayaa ay fulinayaan si ay duleedka magaalada Baydhabo uga saaraan farxadka ciidankii lafta gareen ee weerarka gaadmada ku soo qaaday magaalada Baydhabo gudaha qaybtan waan iga tarmadgeliyo maamulkii laftiisa uu si kala qaybsamay oo wax walba ay maaragtay si xumaadeen waxa qasab noqotay inaan anaga soo baxno anaga aan imaano sidaas aan la keentay aad iyo aad u mahadsantihiin magaalada Jalaqsi aan ku sugannahay alxamdulillah shalayto markii aan nimid ba maaragtay xilli colaad ay socotay xabad ay dhacaysan magaalada imaanay ilaahay wuxuu nagu guuleeyay maaragtay inaan xabadii joojino xabadii aan dhex galno oo labadii dhinacyadii dagaalamay iyo maaragtay xabadii socday aan istaajino ma xanoo xigay maaragtay oo xalay iyo saakan aan ka shaqeynayni sidii ciidamada loo kala guri lahaa loo kala qaadi lahaa la kala fogeyn lahaa xabadii loo joojin lahaa isla markaana maaragtay ciidamo Soomaaliyeed oo noo yimid iyo ciidamadii maaragtay amsom jooga ay qayb uga qaadan lahaayeen sidii hawshaas maaragtay loo hirgeli lahaa waana noo suura gashay hadda waxaan maaragtay bilownay galinkan dambe wada hadaladii iyo wada xaajoojidii dadka sidaan maaragtay u dhaxdhaxaadin lahayn u dhageysan lahayn qof walba hadii meesha colaaday ka dhacdo gacankaada lagu dhaco dad badan ay dhibaato ku gaartay wax u baahan tahay in la dhageysto si wax u dhaceen iyo siday maaragtay xaaladdu ay tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa wada xaajoodiyadaas inaan guuleysan doono oo hadda talaabtii u horeysay hadaan guuleysanay kuwa kalena rajaan ka qabnaa inay maaragtay noo suura gasho waata marka colaadda magaalada ka taagneed ma si rasmi ah ayay u joogsatay mise dhinacyadii wali waa ay soo fadhiyaan haba yaraatee waxa soo fadhiya mal ciidankiina waa kala qaadnay ciidan hadda isu muuqdo oo isu joogo oo maaragtay hadda ma jiro waxa kale oo meesha maaragtay aan hadda haba yaraatee aan jirin wax dagaal hoos socda iyo wax dagaal oo la filaayo xiisadii oo dhan waa soo afjarnay waata marka hore maxay ka dhalatay xiisadan wallahi kullee dadka caadiga ah wanaga hadda waatan aan ku jirno wareysiyadeedii iyo siday wax u jireen iyo qabaa'ilkii iyo aan si gaar ula kulmayno marka mar raba ani hadda inaan maaragtay maadaama aan dadkaas ayaga hadda aan dhageysanayno xal raadinayno marka dambe maaragtay ay arrimahan soo gabagaboobaan aan si faahfaahsan uga hadli doonaa laakiin ayaga aan dhageysanayna caqabadkooda aan dhageysanayna qof walba maaragtay sheegashadiisa aan dhageysanayna si saraaxa ah u dhageysanayna oo daacadnimo waxaan rajaynaynaa in islaax ka shaqeyno oo labada dhinac ay guuleystaan waata marka wax waraa kama heesaan waxa ay colaad marka hore ka bilaabatay ma qalahan waa ognahay wixii ay colaadu ka bilaabatay laakiin hade colaadii way balaaratay oo maaragtay gabdho la kufsaday iyo waxa markii hore ma qasheen oo ay ka bilaabatay waxyaabo gabdho maaragtay la kufsaday waxa ay markii hore ka bilaabatay laakiin colaadii waa maaragtay waa sii xogeystay saameyn kalena waa yeelatay oo maaragtay maamulkii kala qaybisay marka waxa soo dhan aan rabnaa inaan maaragtay aan xalino oo aan wax maaragtay ka dhigno suurtagal in dadku ay wada noolaadaan tan ugu muhiimsanna waa in dadkaas masaakiinta ah ee banaanka taagan ee xilligan roobaadka ah oo xagaayadu ay socdaan oo dabayshu ay socoto maaragtay in dan magaaladii lagu soo celiyo waa garan kartaa meel dagaal ka dhacay xabad ka dhacay dadkii gurigii ay ka cararaan ay sidoo ugu cararaan marka waxa soo dhan aan ku mashquulsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa qasaaraha intuu loo eegay dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee gaaray magaalada wallahi horta qasaaro maaragtay hadii dagaal dhaco waa dad hadda ka badan maaragtay tobana dagaalka ku dhintay intaan uun ka warqabno faahfaahinteeda wali odayaashan ka sugaynaa dadkaas maaragtay dad badan oo dhaawac labaatmay waa ku dhaawacmeen oo maaragtay qaarkood Muqdisho la gaarsiiyay marka waxaan rajaynaynaa waxa soo dhan hadda inaan si detail ah wixii dhacay aan oo maaragtay faahfaahsan inaan u dhageysano waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilmaan Macalimow waxaan ognahay colaadda intay gaadhay guryaha la gubay inta ay heer intaas la eegaysan gaarin maxaa diiday in dhinacyadu maamulkii meesha ka jira uu kala dhax galo ama dhaqankii idinkoo xildhibaanadii deegaanka ah inaad arintan aad ka hortagtaan ilaa heerkaas si aysan u gaarin wallahi horta marnaba kama seexanin maaragtay mar walbana hawshan waa ku jirnay waana ka shaqeynaynay dad waxaan islahayn maaragtay odayaashii dadka deegaanka ku filan maamulka ku filan marka maamulkii laftiisa uu si kala qaybsamay oo wax walba ay maaragtay si xumaadeen waxa qasab noqotay inaan anaga soo baxno anaga aan imaano sidaas aan la keentay haddana maaragtay wax fiican meel fiican inoo maraan dhinacyadii dhan waa aragnay hawl maaragtay aan rajaynayno inay guuleystaan maaragtay rajo ka qabnaa madaxda iyo cid walba oo Soomaaliyeedna waana la soo hadlaysaa
oo maaragtay madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan cid walba oo Hirshabeelle madaxdeedii oo qaar nala socdaan qaar kale nala soo hadlayaan marka dhammaan raja maaragtay muuqato insha Allah waxaan rajaynaynaa wax walba inay hagaagi doonaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ku soo celcelisay in colaadda maamulka ay kala qaybisay maamulka magaalada laftirkiisa baa ku lug lahaa colaadii la arkay ee magaalada ka taagneed كلي هذا أي سو هيستان دتك هدا ماركتي دجالك كله تله يا هدا تاسع لكن وإنه ما ممكن هذا كله إن دقيسنو odayaashii deegaanadii iyo qabaayilkii dadka markaan dhageysano oo faahfaahin ay nasiyaan yaan maaragtay go'aanka iyo go'aanadka ugu dambeeyaan gaari doona laakiin waxa xaq ah inaan dhageysano qof walba maaragtay eediisa iyo dhinacyada oo dhan inaan dhageysano yaan hadda sameeynaa hawshiina waa wadnaa waana maaragtay insha Allah gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda waxaad noo sheegtay in dhinacyadii aad kala dhex gasheen la kala qaaday ciidamadii is horfadhiyay xaaladuna hadda ay degan tahay marka wixii dhacay wax yar ma ahayn oo guriyaal la gubay musiibooyin kale waaweyn magaalada laga soo wariyay marka yaa waay cid lagu la xisaabtamayo wixii dhacay إن شاء الله ماركتي قف كسته أو دنبي أو مقدر جيستي طلابة لقى قاعد دونا محكمة دا عيدما دا قلب كسيدنا ماركتي واي من دونتا ده قفكي جواد فل سمي عد هاي عدين تدي ماركتي أي دي بدأ تالنا طلابة لقى قاعد دونا لو جبنا هرايا ولي بكو هذا ماركتي هورينا يا دجال لي علاد هورينا ماركتي سيدا ماركت وحشني ماذا واحد لا يدك كلا قيبين هنا أي قلفتو maaragtay waxa leenahay ilaahay ka baqa maaragtay inaad dad aad isku leysaan dad isku gubtaan dad walaala oo ko boqolaal sano soo wada dhaqmaayeen wax aad ka faa'iideysan haba yaraatee ma jirto marka wax badan oo social media laga sheegayeen haba yaraatee marka deegaanka timaado waa ka duwan tahay sax waaye colaad waa jirtaa laakiin waxyaabaha boonbooninta ee qabiilka iyo caadifadaha laga dhex wado baraha bulshada haba yaraatee wax ka jira oo maaragtay sax ma aha waxaan ugu maaragtay baaqaya dhammaan dadka Soomaaliyeed waxyaabahaas qaarkood inay iska hubiyaan oo aysan maaragtay ay dadka qaarkiis wararka ay sheegayaan inay cadeeyaan